السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومر لباد iyo aniga engineer qaadilo iyo korskeena aynu sida nooga barateen qaadan jirnay xiliyadan oo kale ee ahaa Cisco Certified Network Associate korskan waa latest version san hore ku sheegay kors numberkiisu waxa weeye 200301 waa versionkii ugu dambeeyay ee ay soo saarto waxa la yiraahdaa shirkadda networking adduunka ugu horeysa ee la yiraahdo Cisco markay saatay waxaan halkan ku baranaynaa course-kaas aan magaciisa idin sheegay inaga oo casharkeeni koobaad geli doona oo markii horena aynu isla qaadanay inaan introduction-kii ugu horeeyay aan soo baahiyay shalay tole maantana aynu casharkii koobaad qaadan doono dhammaantiin inaan la socotaan weeye oo casharka ku xidhnaataan iyo channel-kaba mar labaad haddaan is xasuusiyo channel-kaygu waa Berkhayd TV magacaygu waa engineer qaadilo course-ku waa CCNA halkaas waxaynu kaga gudbaynaa hordhaca introduction-kii oo aynu raacino introduction-kii hore haddaynu u galno casharkeena maanta waxaynu ku qaadan doonaa barashada waxyaabaha loo baahan yahay inaynu ku shaqeyno mar walba kaasoo inaga anfacaya ama wax badan inagala taraya wixii aynu course-ka toolska aynu qaadanay toolska haddaba waa inaad ogsoonaata ama aad fahantaa waxyaabaha lagaga baahan yahay ee aad ku shaqeynayso magacyadooda terminology-gooda waxyaabaha ay ka kooban yihiin inaad barato inagoo gudaha u sii daadigayn oo gudaha u sii geli doona mid isu dul taagi doona imika waxaynu qaadanaynaa inaynu barano itemiska networking-ka loo isticmaalo iyo toolska waxa ugu horeeya waxa weeye waad u baahan tahay laptop waayo laptop markaad doonayso inaad laptop kale ku xidho waa device sidaynu naqaano laptop waa qayb ka mid ah waa isla laptopka laftiisu waa computer laakiin waa isagoo laptop markuu laptopkii uu yahayna waa device hadduu noqdo laptop iyo hadduu noqdo computer waa device kaasoo aad ku kaydsan karto data kuna store garayn kara aanad kala soo bixi karto laptop wayna wada naqaanaa guryaheenu yaalla qof kastaaba haddii aad imika weydiiso laptop uu kitaabsiinaya so laptop waa shaashada muuqaalkan hadda inoo saaran ee aragtaan waana qayb ka mid ah laptopyada dunida lagu isticmaalo noocu doono ha ahaaday loona isticmaali karo markaad doonayso aaladaadii inaad ku connect garayso aalada kale marka waa device kaasoo process garayn kara retrieve garayn kara store garayn karana macluumaad aad ku store garayn karto macluumaadka adigu aad ku shubanayso si macluumaadka hadhowto aad isticmaasho xilliga doonta isticmaalo halka waxaynu kaga baxaynaa inaynu maanta halka ku barano laptop wuxuu yahay inagoo aanu sii dhaadhacayn gudihiisa iyo wuxuu ka samaysan yahay waxa aynaan galin just kaliya barasho qaybtan kale sliceska halka waxaynu ku aragnaa waa computer oo waa aragtaan oo waa desktop computerku waa device oo waa aalad waa device kaasoo process garaya sidaan horeba u sheegnay waa sidii laptopka retrieve garayana ood kala soo bixi karto kuna kaydsan karto macluumaad adigu aad leedahay amaba company leeyahay amaba shirkad leeyahay qofku doona ha lahaaday waxa weeye de computerku xilligu soo baxay iyo taariikhdii iyo historygiisii maxaa la yidhaha halkan kaga hadlamayno laakiin waxaynu doonaynaa qaybta networking-ka ama shabakadda waxyaabaha inaga anfacaya inaynu kasoo qaadano oo keliya markaa computerku waxa weeye waa device process gareeya lagala soo bixi karo lagu kaydsan karo macluumaad halkaa u dhaafmayna isaga marka waana aragtaan oo waa shayga hadda imika inoo saaran shaashada si fiican baynu wada aragnaa markaa taa haddaynu halkaa ku dhaafno waxa kaleynu u gelaynaa waxa weeye waxa la yidhaahdo cross over cable waxa weeye waa device kaasoo loo isticmaalo ama waa aaladaasoo loo isticmaalo in si wada jira loogu xidho waa aalad isaga laftiisu waxa weeye waa cable laakiin cable-kaasoo lagu connect garaynayo aalad allaaliya aaladaad doonto balse aaladda aad ku connect garaynaysaa waa inay ahaataa laba aaladood oo isku mid ah
si fiican bay la socotaa marmanaya. Cross over cable-ku waa sawirka halkan inooga muuqda ee aad aragtaan. si fiican baan idin tusayaa mar labaad waa kan weeye, balse waxaynu u baahannahay inaynu fahno. cross over cable baa magaciisa la yidhaahdo, midabku doonu yeelan karaa, balse laakiinse labadiisa af u aragtaan, afkiisan iyo afkiisa kale, labada af ayaad maaragtay ayuu leeyahay. inta kalena waxaa dhigaa duuduuban waa cable kaasoo isku connector gareeya laba aaladood oo isku mid ah. labada aaladood tusaale ahaan kasoo qaad halkan tusaalaheena laba computer into a networking interface controller. labadan aaladood ee aad isku connector gareynayso waxaad kaga connector gareynaysaa tusaale ahaan mid kasta wuxuu leeyahay connector, interface buu leeyahay, interface connector. marka interface-ka controllerka ayaad u isticmaali kartaa. marka interface-ka hadi jaraalo waa aragteen oo computerku wuxuu leeyahay amaba switchku ama wax kasta waxay leeyihiin interface oo porti oo laga isticmaalo. portigaas ayaad waxaad gelinaysaa halkaa aad aragto ayaad gashanaysaa computerka ama laptopka ama deviceska markaa koryaala doonaysa inaad wax ku connectorayso. laakiin shardigu waxa weeye inay labada aaladood same type ahaadaan marka laga hadlayo crossover cable-kan aynu hadda wadno. marka crossover cable-ka markaynu ka hadlayno weeye waa inay labadii aaladood isku mid noqdaan. taas ayaa muhiim ah oo wax muhiim ah. markaas inaynu fahno weeye taas inay laba aaladood la isku connect garanayo. crossover cable-ka la isticmaalayo labadiisa aad isticmaalayso af ama caara ee ugu horeysa, labadaas baad u isticmaalaysaa portiska ama interface-ka aad aaladda aad ku xiriirinayso, hadday computertii hadday switchtay noocay doonto ahaatee. marka isaga waxaa loo isticmaalaa laba isku mid ah or ama two switches, laba aaladood oo switchi ah. sidoo kale cross cable-ka waxa weeye waxaa loo isticmaalaa inuu aad labada aaladoodna soo sheegnay si directia inuu isugu xidho adigoo aan isticmaalayn. si fiican ila socda hub oo ereygaas waan gadaal baynu ka baran doonaa hub iyo switch. gadaal casharkeena ayay ku jirtaa xagga dambe. marka switch amaba maxaan ku idhahdaayey amaba hubkaas labadaas baad u isticmaali kartaan. ayaad u isticmaali kartaa la-aantood, labadaas shay la-aantood ayaad u isticmaali kartaa. yani iyaga kuma isticmaali kartid weye macno, kuma isticmaali kartid weye macno. marka kuma isticmaali kartid weye macno. marka kaas waa ka haddaynu uga sii halkana waxaynu kaga hadlaynaa straight through cable oo halkaa ku aragtaan. straight through cable waxa weeye waxaa loo isticmaalaa inuu isku xidho laba ama wax ka badan oo computer ah adigoo isticmaalaya switch oo halka ku aragtaan amaba hub. labadaa kalmood xagga dambe inoogu iman doonaan. straight through cable waa kan, waa cable-ka aragtaan magaciisa waxaa la yidhaha straight through cable. network-ga lagu isticmaalaa. sababta lagu isticmaalayana waxa weeye inuu laba computer inuu isku xidho, labadaa computer si wada jira adiga oo isticmaalaya switch. kan halkaa ku aragtaan switch, mar labaad aniga hadli karayo waa ka, ama adigoo isticmaalaya hub. labadaasiba waad ku isticmaali kartaa. aan soo sheegay adigoo u isticmaalaya labadaas waxaad kaga isticmaalaysaa wuxuu leeyahay piniska on one side to the another pin on the another side. waxaad gelinaysaa computerkii ayaad dhinacan ka gelinaysaa, dhinacan kalena computerkii ayaad ka gelinaysaa, amaba switch baad u isticmaalaysaa
oo switch haddaad u geliso dhinaca kalena piniska ama portiga, pinna waa la dhahaa, portina waa la dhahaa. Marka almost portiska inta badan loo isticmaalaya meesha la gelinaya waa portiska, laakiin isagu pinis buu leeyahay. Piniskiisa waa kuwa waa aragtaan, piniska waa kuwa. laakiin isticmaalka markaad doonayso wirekii intaad soo qaado straight through cable-ka labadii aaladood ayaa doorsidaad geliso portiga midna halkaad ka gelinaysaa, ka kalena halkeeda kale ee lamidka ayaad gelinaysaa. laba meelood oo kala duwan ma kala gelinaysid, laba porti oo isku mid ayaad isticmaalaysaa. hadday tahay switch iyo hadday tahay hub, adigoo isticmaalaya dee switch ama hub. halkana waa crossover cable oo waa kii aynu markii dhawaad soo dhaafnay, oo labadii aaladood isku midka ahaa, type-ka isku nooca ahaa ayaad ku isticmaalaysaa. kaana waa kuma noqonayna casharkii hore oo dee waa fahantay baan u malay, laakiin hadda just remembering baan uga jeednaa, xasuusiyo labadanu kala duwaanshadoodana waynu qaadan doonaa, xaggan ku qaadan doonaa. taasina waa taa. qaybtan xigta ayaynu ugu gudbaynaa. waxaynu leenahay labadii hadda aynu soo sheegnay maxay ku kala duwan yihiin. What is the difference between straight through cable and crossover cable? maxay ku kala duwan yihiin labadan aynu soo sheegnay? waa crossover cable oo kana iyo straight through cable oo kaasa. labadood maxay kula duwan yihiin? sida iska caadiga straight through cable-ku waxa weeye waa kan. straight through cable-ku waa kaas. iyo sida caadiga normally wuxuu loo isticmaalaa in la isku connector gareeyo laba wax oo aan isku mid ahayn, laba aaladood aan isku mid ahayn. sidaan horeba idinku sheegay waxa weeye waa straight through cable-ki ayaa waxaad isku connector garanaysaa laba wax oo kala duwan, laba device oo kala duwan, like sida oo kale switch iyo computer, ama switch iyo hub oo kale. sidaas oo kale switch iyo hub ka soo qaad, ama switch iyo hub, labada waad isugu isticmaali kartaa, waad ku isticmaali kartaa, waad isugu xidhiidhin kartaa, waa loo isticmaalaa. laakiin crossover cable-kan halkan yaala, crossover cable-ka halkan yaala, waxaa loo isticmaalaa isaga in la isku connector gareeyo laba aaladood oo isku mid ahayn iyo laba isku mid ah. labadaba laba aaladood oo kala duwan, maxaan jeedaa cafwan isku mid ah, iyo laba aaladood oo kala duwan. labadaba isaga waa isku connector gareeysaa, laba isku mid ah iyo labaan isku mid ahayn. labadaba waad ku isticmaalaysaa isaga crossover cable-ka. halkaad isaga kaga isticmaalayso laba aaladood oo kala gedisan isaga waa kane. si fiican baa u fahamtay baan maleetaana. haddaynu ugu soo gudubno qaybteena kale, waxa weeye switch-keenu hadda ka hadlaynay sawirkiisu waa kan. switch muxuu yahay? switch waxa weeye waa device, waa aalad that forwards and filters the network. waxay forward garaysaa oo ay ku gudbinaysaa, waa wixii waxbay gudbinaysaa. waxay gudbinaysaa waa data dhex maraysa. interface-kan idiin sheegayay, aan hadda idiin sheegayna waa kan. interface-ka ama portiska waxa loo yaqaana waa kaas weeye interface-ku ama portigu. si fiican baa aragtaa waa halkaa. marka kaasuna waa midkana waa midkana. marka inta badan switch-yadu waxay leeyihiin 24 iyo 48 ports. haddaad ku antirsaan 1 2 3 4 5 6 7 8 waa 8 iyo 8 iyo 8 waa 24. qaarna waxay leeyihiin 48 ay leeyihiin, laakiin inta badan normally 48 ay dadku ay isticmaalaan. marka kaas waa switch-ka. marka mid kastoo halkan ka mid waa port aad gelin karto waxa dhowtoole waayarada hadda idin soo sheegay ayaad gelin kartaa. taana waa isla fahnay. portisku waa kuwan, portiskaas ayaa loo isticmaalaa. marka ayaad u isticmaalaysaa dhowtoole maxaa switcheski aan ku lahaa, switch-kan aan hadda ku lahaa, crossover cable baad u isticmaalaysaa oo kuwaasa, iyo straight through cable-ka. labadaas baad u isticmaali kartaa. qaabka lagu isticmaalayana waa inaga sheegnay. taasina waa taa. haddaynu u nimaadno markaa datada siday u dhex marayso switch-ka markaynu ka hadli doono, ama aynu hadda wax ku xidhin doono, ayaynu ka hadli doonaa qaabkay datada u dhex marayso. cashar gaar aynu kaga hadlinaynaa because muhiimad gaar inuu leeyahay.
siduu dheetada u forward garayo iyo sida u filtri garayo. Filters waxaa la dhahaa sida wixii wuxuu dhex marayaa shayga, waa filterka baabuurka dee. marka inaad taana fahanteen baan u malaynayaa. allahuma salli calaa maxamed. si fiican baa u fahanteen baan u malaynayaa qaybtaasna. waxay kaleynu usii kala gudbi doonaa router. routerku waxa weeye waa aalad that can forward data packet. waa data packet ama datadii ayuu gudbinayaa between the computers network. computeradii ku xidhnaa ayaa aaladan loo yaqaano router ay u gudbinaysaa. marka waxay gudbisaa, waa aalad waxaanay gudbisaa ama forward garaysaa data packets between baa lagu leeyahay the computers networks. computer networkska ayay u gudbinaysaa. sida ay u gudbinaysay qaabka ay u gudbayso waynu qaadan doonaa, mid walba gaar baynu dul istaagi doonaa hadduu alla yidhaahdo casharadan ka dambeeya insha allahu tacaala. laakiin hadda waxaynu baranaynay aaladaha aynu u isticmaalayno, tooliska aynu isticmaalayno networka aynu ku baran doono maxaa la yidhaha koorskeena. marka sideen horeba idinku soo sheegay waxa weeye markaad baranayso networka waa inaad waxyaabihii tooliskii aad isticmaashaa ama aad ogaataa. maxaan ku idhahdaa casharadeena kale waynu kusoo qaadanaynaa. ha ilaawina oo markasta niyadda ku haya inaynu koorskan qofku hadduu mar maxaan ku idhahdaa uu koorskan uu subscribe ku sameeyo, like ku dhufto, comment ma ka bixiyo, because waa wixii uu baranayay aniguna macallinkii bixinayay baani, inuu markasta qofkaasi casharkii toos uu helayo, maadaama as long as uu wixii uu rabo uu jecelayo uu like gareeyay, comment uu ka bixinayo, uu share gareynayo dadka wixii u baahan. waayo aqoonta adduunyada imika waad aragteen oo wax walba waxa weeye waa limit baa lagu sameeyey oo qofku dee iskuulkii amaba onlinekii wixii intii aad lacagta ka bixiso baad qaadanaysaa. maadaama koorskeenu ay anigu ujeedayto inaan dadka Soomaaliyeed iyo dadka wixii kale rababa aan u faa'iideeyo, qofku doono ha ahaado oo aan contribution ku sameynayo. qofku si contributionkii uu u helo, waxaan jeclaan lahaa qofkaasi inuu maaragtay subscribe channelka ku sameeyo uu markaa si de halkaa kala socdo. haddii aanu subscribe ku samayn, inta badan waxa weye wixii kuma soo gelayaan, because adigiiba markaa raadsanayo doonanaya. waxaa ku fiican inaad just click ku samayso subscribe. qofku markuu subscribe-nayo wuxuu u baahan yahay kaliya inuu subscribe ku dhufto, dabadna like ku dhufto, share iyo comment uu markaa sii share karayo, comment ka bixiyo. hadduu doonayo inuu markaa subscribe, waxa kaliya waxa weye de sign garee buu ku leeyahay, emailkaa ku sign garee meesha. emailkaaga just waad gelaysaa, passwordkaad gelinaysaa, markaa subscribe basaa ugu samaynaysaa si casharka xiga aad la socoto. markasta intaasna waan idinka codsanayaa, because idinka idin fiicanta, idinka wey dadka wax baranaya. anigana waxaan maxaa la yidhahdaa aan aad iyo aad aan idinku diyaarahay inaan casharadaasi free idin soo gaarsiiyo. kooraskan dhammaantiis ilaa horeysa ilaa dambeysa waxaa u baahantay computer aad ku isticmaasho laababka waynu geli doonaa. cashar walba laab buu leeyahay. kooraska ku xiga waxaynu sameynaynaa imika laab 2 computer baan isku xidhi doonaa britol hadduu alla yidhaahdo insha allahu, oo kooraska aynu qaadan doono casharkan xiga. balse laakiin waxaan ka codsanayaa inaad u baahantihiin, inaad internet u baahantihiin iyo inaad computer u baahantay. walow kaana qofka ama saacad ka qaado ama bahalaada ama adiga allahow, yani in yar baad u baahantay 30 daqiiqo inaad isticmaasho computerka inaad fahanto. intaas waa mid waan idin sheegayaa inaad dee daacad ka tahay oo wixii aad baranaysana aday ku anfacaysaa. waqti ha iskaga lugoyn haddaana doonayn waxaan inaad barato. waa talada anigu aan siinayo. qofku wixii uu rabo inuu barto uu baran karaa, wuxuu doona ha ahaado. intaasuna waa qodobka kale aan doonaya hadii sheego. maaha maadadan maada aad fikirayso wax badan oo la aqriyo, waxaan just waa inaad waxaan kala fahanto sida loo isticmaalayo, sida la isugu xidhayo, sida u shaqeynayaan. maadadanu waa kooraskan waxa weeye kooras keligii aad ku shaqaysan karto. kooraskan oo keliya ma bixinayo. kooraskan markaan dhammeeyo koorasyo kale ayaan bixinayaa. muddo badan baan doonayaa dadkan contributionka inaan ku siiyo dadkii u baahan aqoonta technology ama information technology
gaar ahaan CCNA course-ka koorsooyinkan dhigi doono waan idiin soo sheegi doonaa. waa koorsooyin badan baan hayaa aniguna diyaar baan idin yahay idinkuna waa diyaar yahaataan. koorskeeni halkaas ayuu inoogu ogyahay cashirkeeni maanta. Please subscribe, like, share, and hopefully I will explain everything on the next lesson inshallah ta'ala, and hopefully inshallah ta'ala you will love this message. Thank you so much. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.